mahad salaad tan iyo markii loo magacaabay taliyaha niisa hal mar ma uusan soo hadal qaadin kiiskii Ikraan Tahliil. mahad salaad ayaa ka mid ahaa dadkii qoriga u qaatay in Ikraan Tahliil ay hesho cadaalad, isagoo isla markaana dusha ka saaray taliyihii hore nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin. horta waa kuma mahad salaad? aynu eegno taariikhdiisa iyo sida uu ku soo galay siyaasadda Soomaaliya. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sanadkii 1981 ku dhashay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. taliyaha nabad sugidda ayaa mar uu taariikhdiisa ka hadlayay waxa uu sheegay in waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe uu qayb ka mid ah ku qaatay Soomaaliya, halka qaybna uu ku qaatay dalka Kenya. xildhibaan Mahad Salaad ayaa sidoo kale sheegay in waxbarashadiisii dugsiga sare uu ku soo qaatay dalka Masar. mahad salaad ayaa waxbarashadiisii heer jaamacadeed ku soo qaatay dalka Masar, isagoo sidoo kale sheegay in shahaadada mastarka uu ku qaatay isla waddanka Masar. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa siyaasadda ku soo biiray sanadkii 2011 markaasi oo ka mid noqday xubnihii xisbigii PDP. sanadkii 2012 ayaa markii ugu horeysay loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaan Mahad Salaad ayaa mar kale waxa uu ka mid noqday golihii shacabka doorashadii sanadkii 2016. taliyaha nabad sugidda ayaa markii saddexaad ka mid noqday baarlamaanka Soomaaliya. sanadkii 2013 waxa uu ka mid noqday golaha wasiirada, isagoo loo magacaabay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda. waxa uu sidoo kale Mahad Salaad uu xilligii dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar uu noqday wasiiru dowlaha madaxtooyada. mahad salaad ayaa 10kii sano ee ugu dambeysay uu siyaasadda ku jiray waxa uu ahaa siyaasiyiinta ugu saameynta badan Soomaaliya. waxay intii uu xilka hayay madaxweyne Farmaajo oo ka mid ahaa siyaasiyiintii sida weynka uga soo horjeeday dowladdii madaxweyne Farmaajo. waxaa lagu xasuustaa markii uu madaxweyne Farmaajo isku dayay inuu samaysto muddo kororsi. waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii horkacayay ciidamadii loogu magac daray badbaado qaran. waxa uu xildhibaan Mahad Salaad sidoo kale ka mid ahaa mas'uuliyiin ka qayb qaatay abaabul ciidan ee looga hortagayay kooxda Ahlus Sunnah. ugu baaqaynaa kooxaha diinta ku qaraabanaya ee dadka reer Galmudug sida micna darrada dhiigooda ku daadinaya, amnigooda ku carqaladaynaya, nidaamka dawladeed ee deegaanadan ka hana qaadana lagu cuuriyaaminayo inay ka waantoobaan. waxaan idin leenahay walaalayaalow, haddii xil wax tarayo ama xoolo wax tarayaan, maamuladii dalkan iskaga dambeeyey ee dhowrka ahaa qolo waliba heshiis ayay idinkula gelayeen, xoolo ayaad ka qaadayseen, xilal ayaad ka qaadayseen, mas'uuliyadda ayaa mararka qaar la idin dhiibayay oo la idin lahaa adinku wax maamula. Mahad Salaad ayaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii hormuudka ka ahaa u ololeynta sidii ay cadaalad u heli lahayd qoyskii Ikraan Tahliil. bishii November kadib markii ay soo ifbaxeen warar ku saabsan dilka Ikraan Tahliil ayaa waxa uu Mahad Salaad shaki geliyay cidda ka dambeysay dilka, isagoo taliyihii xilligaasi Fahad Yaasiin ku eedeeyay dilkaasi. waxa uu bartiisa baraha bulshada ku soo qoray waliba Facebooka al-shabaabka Fahad Yaasiin sheegaya inay dileen Ikraan Tahliil waa asaga dilay duugayna Ikraan Tahliil. ehelada Ikraan waxaan kula talin lahaa inay furaan gal dacwadeed Fahad ka dhan ah. Mahad Salaad ayaa marar badan ku celceliyay waqtigii ay doontaba ha qaadatee in Ikraan Tahliil iyo qoyskeeda ay cadaalad heli doonaan. qof annaga naga mid ah inta uu nool yahay insha Allah kiis Ikraan kama hari doono inta cadaalad la horkeenayo dambiilayaashii shaarka dawladeed idinku dhibaateeyay, ayuu 24 Maarch sanadkan ku soo qoray boggiisa Facebooka. ilaa hadda lama oga inuu weli kiiska ku daba jiro, walow dadku shaki badan ka qabaan in wax uu ka ogaa dilka Ikraan, maadaama taliyihii hore ee niisa uu ku eedeeyay in Mahad Salaad uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab uuna gacan saar la leeyahay Mahad Karatay. baabuurta qaraxyada magaalada la soo geliyo dad baa soo geliyo, shabaab ma aha nin indhala oo iska socda ma. dadkaas indhala oo iska socda oo meel isaga dhufanaya ma. dad baa caawiyo facilitationka u sameeyo, dadkaas caawiyo u shaqeeyo inuu ka mid yahay. waxyaabo waaweyn dalkan uu ka geystay oo xasaanadu ku gabanayay, qaarkoodna anaga waa ka hortagaynay, qaarkoodna waxaan la suganaynay waqti lagu xisaabtami karo. Fahad Yaasiin ayaa ku eedeeyay inuu horay u shirqoolay Mahad Salaad, sarkaal ka tirsan niisa kaasoo lagu dilay duleedka magaalada Dhuusamareeb. sidoo kale waxaa jira shaki ah inuu lug ku lahaa qorshihii shabaab ay ku qaarijiyeen Allahu naxariistay General Farxaan Qoroole. isku soo wada duubo, Mahad Salaad waxa uu qalqal geliyay magaalada Muqdisho kiiska Ikraan Tahliil dartiis, isagoo markaa horboodayay ciidamadii la magac baxay badbaado qaran. maadaama hadda uu yahay taliyaha nabad sugidda qaranka, halkee buu ku dambeeyay kiiska Ikraan? mise kiiska Ikraan waxa uu ahaa kambeyn ay xil ku raadinayeen? adigu sidee kula tahay dhageyste?